wararka ka imaanaya degmada Dinsoor ee gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in halkaasi caawa lagu toogtay mid ka mid ah dhalinyarada ugu caansan ee degmada. Ciidamada ammaanka ayaa go'dhow toogtay nin lagu magacaabi jiray Deeqow oo ka mid ahaa dadka sida weyn looga garanayo gudaha magaalada. Sababta keentay in la toogto ninkan ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay ka shakiyeen wiilka dhalinyarada ah markii ay isku dayeen ciidamada inay istaajiyaan waxa uu ka cararay goobta, taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas u adeegsadaan. waxaana laga cabsi qabaa inuu halkaasi caawa dagaal ka qarxo maadaama dadka shacabka ah ay banaanbaxyo dhigayaan. ciidamada ammaanka ayaana mar kale isku dayaya in dadka banaanbaxyada dhigaya ay halkaasi rasaas u adeegsadaan. wararka qaar ayaa sheegaya in wiilkan geeriyooday uu toogtay mid ka mid ah istaafkii gudoomiyaha degmada Dinsoor Cismaan Macali Cabdi. sidoo kale waxaa la soo wariyay in xaaladdu degmada maalmihii ugu dambeeyay faraha ka sii bixaysay iyadoona xaalad amni darro laga soo warinayay degmada Dinsoor ee gobolka Bay. ciidamada degmada ayaana caawa halkaasi ku toogtay mid ka mid ah dhalinyaradii ugu caansan ee degmadaas kaasoo lagu magacaabi jiray Deeqow. waxaana sidoo kale wararka aan helnay ay sheegayaan in ninkii toogtay wiilka dhalinyarada ah uu goobta ka baxsaday, taasoo keentay inay dadka shacabka ay ka caroodaan falkan uu geystay mid ka mid ah istaafkii gudoomiyihii degmada Dinsoor ee gobolka Bay. ma jiro wax hadal oo ka soo baxay laamaha ammaanka gaar ahaan gudoomiyaha degmada Cismaan Macali Cabdi kaasoo mid ka mid ah ilaaladiisa uu toogtay wiilkan dhalinyarada ah oo caawa lagu dilay degmada Dinsoor ee gobolka Bay. xiisadda ayaa kacsan iyadoo laga cabsi qabo halkaas inuu caawa dagaal u dhaxeeya dadka shacabka iyo ciidamada ammaanka uu ka qarxa halkaasi. degmada Dinsoor ee gobolka Bay ayaa xaaladeeda ahayd mid faraha ka sii bixaysay iyadoo laga soo wariyay xaalado amni darro iyadoona halkaasi mararka qaar ay ka dhacayeen falal ammaan darro kuwaasoo ay geysanayaan rag ku hubeysan tuutaha ciidamada. waad ku mahadsan tahay daawade, haddii aad halkan la soo gaartay waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka laag saarto sina sheer garayso boggan aad follow tiraado saaxiibadaadana aad la wadaagto muuqaalkan. mahadsanid.